Assalaamu calaykum. Soo dhawaada walaalaha ku xiran Birol Islamic Media. Waxa aan muuqaalkan jeclaystay inaan idinkugu soo gudbiyo 4 sirood oo ka qarsan maalin walbana ay ku dhaafaan. Haddana aadan samayn karin waa sida aad adiga aaminsan tahay. Sirta koowaad, rasuulkeena ayaa inoo sheegay in haween walbo ay ku jirto saacad, waana saacadaha u dambeeya habeenkii. haddii qofka weydiisto kheyr adduun ama mid aakhiro, Allah tabaaraka wa tacaala wuu siiyaa. Laakiin in badan oo dadka ka mid ahi habeenkii waxa ay ku dhafraan baraha bulshada. Ogow, waa meesha Allah tabaaraka wa tacaala uu dhex dhigay horumarkaaga, waxaana u soo degdega nafta keliya ee horumarka doonayso. Waana wakhtiga dadka caajizooliyaasha intooda badan ay hurdaan. Sirta labaad, Rabbigeen ayaa inoo sheegay in qofkii weydiistaa uu siinayo. Allah tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi, fadcuunii astajib lakum, ibarya waan idinka ajiibi. Waxaadna ogaataa, haddaad Allah u weydiisato si niyad ah waa ballan inuu ku siinayo. Haddaad xanuunsan tahay, si niyad leh caafimaad u weydiiso, waa ballan inuu ku caafinayo. Sirta saddexaad waxa ay tahay, maalintaada ku bilow qur'aanka, isla maalintaada ku dhamee qur'aanka. Dad fara badan arrintaa ma sameeyaan. Qur'aanka akhrintiisuna waxaa kaaga sugan ajar weyn, halkii xarafba waa 10 ajar. Bal ka waran haddaad jus maalinkii aad akhrisid, waxa uu kaa qaadanayaa keliya waa 20 daqiiqo. Sirta afaraad, waana sirta u dambaysa, waxay tahay markaad masjidka aadaysid gurigaaga ku weysiiso. Waxaadna ogaataa in talaabo kasta aad ajar ku helaysid, tan kalena gafyafyadaada lagaaga tirtiri.